horta waxaan la yaabay ducaadu marka ay isbedelaan ee la wacdiyo maxay u dhahaan Soomaalida waxaad moodaa raqiib iyo catiid Soomaalida qaarkood waxa is leedahay waxay qabanayaan shaqada Ilaahay subhanahu wa ta'ala u dirsaday raqiib iyo catiid taasoo ah in qofka jaaj gareynaya taasoo ah in xitaa dunuub adag aasoo bisay ayka isku dul qoray subhanallahi alazim Soomaalida qaar waxa u malaysaa shaqadii Ilaahay u xil saaray raqiib iyo catiid inay ayka qabanooyina u malaysaa sheekh waayo wax darajo sare waa aniga sareyso yani macnaha maxal dhahay ani ma gaarin من هي شاف raqiib iyo catiid oo raqiib iyo catiid ma waxbay qoraan oo qoraalka Ilaahay u xil saaray raqiibun catiid mid ilaalinaya waxa uu qorayo ku madax adag mise Ilaahay baan idinku dhaariyay dadka qaladka ka qabtaan يعني دada qole jahannamad galaysa jannado kaaga dhiman hal tilaabo ay jahannam isku turtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala janno iyo jahannam kala hayso ma faham taadalkan waxay tahay dadka kale waxa ku soo suubinayno qolkaas diyut waxay lahayn jahannamad galaysa معيده ما هاد idinku dadka wacdinaysaan dusha uga baxaysaan leedihiin waxani waa sax waxani waa khalad idinku raqiib iyo catiid baatihi iyo gacanta iga taabatay ujeedaan u soo dhigay taasina waxa ahayd in ninka niyu kala fiiriyo tabiya waan idin tijaabinayay seenoo tijaabinaysaa annagu yaa sanahay adigu sayaatahay yani Ilaahay subhanahu wa ta'ala adoonkiisa adan ahayn Ilaahay adoomadiisa xumaan ma lagu tijaabin karaa ya hadaa tiraado waan zinaysanaya waxaan tijaabinaya waxay ugu yiraahdaan bal ka waran هي سوقات ما فاهمين أمي برنك سهلة ما فاهمين إليك ما فهمتين أصحابنا kaleetana waxay tahay dad badan oo jeedo lahayd qofka haduu san wax baran qeyrkii wanaaga meeshiiska ma sii wadi karo alxamdulillah waxaan nahay qof wax bartay dag hadalyaal badan aan u jeeday oo dad qaarkood aniga ugu soo dag hadlayaan kuwaas oo ahayn asxaab aniga ugu dhow laakiin kelimada sheekh ay ugu leeyahay aan darajaas ma gaarin wali iga joojiye please ani sheekh mi Soomaaliya ha yani sheekhan iska dhigtay isaan waay isaan bilaad wajh qof wajh ka jarsuuna male hadda idin dhaho ani sheekh nihi meel aan u dhaana ma jirto sheekha idinka iyo dusha iga saaroosin ya ayyuhalladina aamanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun wardulka Ilaahay rumeeyo maxaad u dhahaysaan waxaydan sameeyneenin ogaada Ilaahay agtiisa waa dambi weyn inaad ta'ala ayaan dambi dhaaf ka weydiisanaya ee ma ahan in idinka aan idin weydiisanaya dambi dhaaf Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa inaan kulligeen aan wada laabano muuqaalkaas ujeedadaas oo ahay su'aashan waxaan u maleynayaa inaad fahantay hadda tahay qof weyn oo wax fahmay ducaaday magacyada culimada ha ku dheelina maqsadkeenu ma aha fuyuus 700 ku 8 milyan walaw halun ba 3 milyan ba gaad isku bedelna walaal bal iga warrama marka ama heesa soo saarta ama libaas gaalada xidho isku ekaysiya ama food soo jarta culimada iyo dacwada mamasha culimada iyo dacwada waxa matala ka ikhlaas kale ka tadxiyada la iimaanaya walaw haduu doono wuxuu xumaanaha qarsadee bulshada hortooda wanaag oo ku buujinaya anagu inta daahirkiisa waxaan ka aaminaynaa inuu wanaagsan yahay waa akhir dacwana alxamdulillah